Michelle Solomon ayaa la xaday iyadoo 3 maalmood jirta waxaana laga xaday isbitaalka sanadkii 1997 waxaana la helay 17 sano kadib. Helitaankeeduna waxaa suurageliyay walaasheed oo ay isku fasal haayeen sanadkii ugu dambeeyay dugsiga sare. ku soo dhawaada kanaalka Kori Maskaxdaada. intayn guda gelin qisada nagu soo biir oo subscribe saar kanaalka, like-na saar muuqaalka, siina share garee muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada. xaditaanka Michelle Solomon waxay bilaabantay taariikhdu markay ahayd bishii Abriil sanadkii 1997 markii la xaday ilmo ku dhashay isbitaal ku yaala Cape Town. ilmahaas oo jira 3 maalmood oo lagala baxay qaybta dhalmada iyada oo ay hooyadeed hurdo. ilmahaas oo ahayd gabadh magaceeda la yiraahdo Stephanie Nurse. booliskiina waxay bilaabeen inay raadiyaan ilmahaas la waayay, laakiin bilo kadib waa lagu guuldareystay in la soo helo ilmahaasi. waayitaankaas kadib gebi ahaanba waa la xidhay kiiskaas. ilmaha yar waxaa xaday haweeney lagu magacaabo Lofana Solomon, taasoo dhowr jeer ku guuldareystay inay dhasho carruur. haweeneydaasi waa ay korsatay gabadhii iyada oo siisay nolol aad u heer sareysa oo u muujisay inay tahay waalidkeedii saxda ahaa. Michelle Solomon waxa ay soo gaadhay dugsigeedii sare sanadkii 2015 waana 17 jir, waxayna ku jirtaa galaaska 12aad ee dugsiga sare. waxaa iskoolka ku soo biirtay gabadh cusub oo lagu magacaabo Cassidy Nurse. gabadhani waxay u muuqatay inay aad ugu eeg tahay Michelle. isku ekaanshihii waxaa aad ula yaabay oo buunbuuniyey ardaydii iskoolka. Michelle waa loo sheegay isku ekaanshaha ka dhexeeya gabadhan, waxayna aad u xiisaynaysay inay la kulanto gabadhan cusub. ugu dambayna Michelle iyo gabadhii cusub ay wada kulmeen. inkastoo gabdhahani ay horey isku aqoon, laakiin waa ay dareemeen inuu xidhiir ka dhexeeyo. dareenkaas ayaa waxa uu dhaliyay inay samaystaan saaxiibtinimo aad u qoto dheer iyo isbarasho. waxay bilaabeen inay waqti badan wada qaataan, sidoo kale waxay bilaabeen inay iskugu wacaan oo ay iskugu yeedhaan magacyada sida walaasha yar iyo walaasha weyn. waxay bilaabeen inay isku dhar xidhaan oo ay isku labis qaataan, sidoo kale ay timaha isku qaab u shalneeyaan oo ay u jartaan. dadkii waxay aad u arkeen isku ekaanshahooda habdhaqanka iyo mid jidheedba. dadkiina waxay bilaabeen inay weydiiyaan ma walaalaatiin iyo su'aalaha la midka ah, iyagoo dadkii ay ka yaabeen isku ekaanshahooda. waxay sameeyeen waxa ay badanaa sameeyeen asxaabtu, waxa ay wada galeen sawirro. sawiradaasina waxa ay noqdeen kuwii bedeli lahaa noloshooda. maalinkii sawiradaas la gelay kadib, gabadh kasta waxa ay ku hoyatay gurigoodii, mid kastana waxa ay tustay sawiradii waalidkeed. Michelle iyo Cassidy waalidkood sawiradii qaabab kala duwan ayay uga falceliyeen. markii Michelle ay tustay sawirkii hooyadeed Lofana Solomon oo ahayd haweeneydii soo xaday gabadhan yar, waxay u sheegtay sawiradani inay waxaan yihiin wax caadi oo dhaca. laakiin Michelle aabaheed Michael oo ahaa ninka qaba haweeneydin soo xaday gabadhan yar ayaa aqoonsaday Cassidy aabaheed oo u sheegay inuu ka mid ahaa macaamiisha dukaankiisa kaasoo degan xaafadda ay degan yihiin. laakiin xaaladdu waxay isbedeshay markii Cassidy ay sawirkii tustay waalidkeed. waalidkiina aad ayay ula yaabeen sawirkii, waxayna Cassidy ka codsadeen inay weydiiso inay dhalatay 30 Abriil sanadkii 1997. ugu dambayntiina Cassidy waxa ay xaqiijisay in Michelle ay dhalatay taariikhdaas.
waalidkiina waxa ay bilaabeen inay gabadhan cusub wax ka baaraan xogo ku saabsan iyada. toddobaadyo kadib Mishii waxaa looga yeedhay xafiiska iskoolka iyadoo ku jirta xiisadaheedii. ma aysan garanaynin sababta loogu yeedhay. waxa ay dareentay cabsi iyo welwel sababtoo ah xafiiska waxaa looga yeedhaa inta badan ardayda xunxun. markii ay xafiiska timi waxa ay la kulantay 2 shaqaale oo ah kuwa caafimaadka, waxaana loo sheegay sababta loogu yeedhay oo ahayd sheekada gabadh 3 maalmood jirtay oo lagu magacaabo Stephanie Nars oo laga xaday isbitaalka Great Shore 17 sano ka hor. waxaana loo sheegay in looga shakisan yahay inay tahay ilmahaas. Mishiina waxa ay isku dayday inay iska difaacdo eedeymahaas. waxa ayna tustay waraaqdeedii dhalashada taasoo iskoolka u diiwaangashanayd. shaqaalihii goobta ku sugnaana waxa ay bilaabeen inay la xidhiidhaan isbitaalka ee loo sheegay Mishii inay ku dhalatay. sidoo kale Mishii waxaa lagu qanciyay in laga qaado tijaabada DNA-ga. Mishiina waxaa ku furmay buuq iyo wareer badan, waxayna isku qancisay in ay khaldan yihiin shaqaalahani oo ay ku soo khaldameen iyada. laakiin waxaa soo baxday jawaabtii baaritaanka DNA-ga kaasoo aan sheegayn wax been ah. baaritaankaasina wuxuu xaqiijiyey in Mishii Solomon ay tahay gabadhii yareed ee la xaday. markii la waayay Stephanie, wargeysyadii waxa ay aad u taabiceen warkeedii. sidoo kale markii la helay hogagii hore ee saxaafadda waxaa qabsaday sheekada gabadhan la helay 17 sano kadib. Mishiina waxaa lagu xareeyay guri ammaan oo ay dawladdu leedahay. sidoo kale go'aan kama gaari karto cidda ay la midoobayso sababtoo ah waxaa 18 sano uga dhimanaa bilo. Mishii xadhigga loo geystay Lafana oo ahayd hooyadeed oo soo korsatay aad ayay uga xumaatay xadhiggeedii. Michael oo ahaa sayga Lafana waxaa loo kaxeeyey saldhigga booliska iyadoo oo la weydiinayo su'aalo ku saabsan kiiskan. su'aalo badan oo ay boolisku weydiiyeen Michael waxaa soo baxday inuusan waxba ka ogeyn afduubka gabadhan yar. sidoo kale ay khiyaamaysay xaaskiisa Lafana. Michael waxa uu booliska u sheegay in xaaskiisa Lafana ay lahayd uur sanadkaas 1997. arrimuhuna ay si wacan u socdeen. waxaa dhacday in ilmihii ka dhinto Lafana oo aysan cidna u sheegin, waxayna soo xaday ilmahan Stephanie Nars iyadoo sheeganaysa inay dhashay ilmahan. Mishii waalidkeedii dhalay ee saxda ahaa kama aysan quusan inay raadiyaan gabadhoodii curadda Stephanie oo laga xaday. sanad kasta 3 Abriil waxay u dhigi jireen xaflad dhalasho gabadhooda ka maqan. waxaa la yaab leh Lafana in ay deganeed guri 5 kiiloomitir u jira guriga reerka laga soo xaday ilmaha. maxkamadaynta Lafana waxa ay bilaabantay 2015 bishii Agoosto. maxkamaddii waxaa soo buuxdhaafiyey saxaafaddii qaybihii bulshada kuwaasoo doonaya inay ogaadaan sidii Lafana iskaga difaaci lahayd caddeymahaas. waxa ugu weyn ee Lafana ay ku dacwoonaysay ayaa ahaa inay jirtay haweeney lagu magacaabo Sylvia taasoo u keentay cunugan si ay u korsato. laakiin baaritaan kadib waxaa la caddeeyey in haweeneydan ay sheeganayso ay tahay wax aan jirin. Lafanana waxaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Mishii aad ayay u jecleed hooyadeed soo korsatay, waxa ayna xabsiga ku booqataa maalin kasta, waa ayna iska cafisay. sidoo kale waxaa xusid mudan markii Mishii laga codsaday inay dib ula midowdo oo ay ku biirto qoyskeeda, waa ay diiday. laakiin hadda waxay la nooshahay aabeed Michael oo ahaa sayga haweenaydiis soo afduubatay. Mishii hadda waxa ay ogashahay in lagu yeero labada magac ee Mishii iyo Stephanie.
intaasuu ku eegyahay muuqaalkeena. waxaana rajaynayaa inaad ka bogatay sheekadan. fadlanna wadaag asxaabtaada, sii sheergara muuqaal. laakiin ha ka ilaawin muuqaalka waxay qayb ka yihiin koritaanka iyo kobaca kanaalka.